kulan waxaana wanaagsan ee qaarta hawada nagala socotay meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada qodobo dhowr ah oo ku eegi doono xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo dagaalada ka socda dalka Itoobiya ee ka soo cusboonaaday asbuucani haddaan ku jirno. qodobada wararkeena ugu doorana waxaa ka mid noqonaya dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada xoreynta Oromiya iyo ciidamada gaarka ee New Booliska dowladda deegaanka Soomaalida oo maalmihii ugu dambeysay lagu sii daadgureynayay deegaanka Oromiya ayaa maanta isku farasaaray magaalada Huwet ee deegaanka Oromiya. waxaa sidoo kale warkeena aan ku eegi doonaa ciidamada xoreynta axmaarada ee loo yaqaano Fana oo maalmihii ugu dambeysay hanjabaado hawada u marinayay ciidamada xoreynta Oromiya oo si weyn looga cabsi qabay in iyagana dagaal uu ka dhax qarxo. waxaa sidoo kale warkeena aad ku eegi doonaa ciidamadii Tigreeg oo iyagana si xawli ah ugu soo hubruursanaya ama u soo galahayaba deegaanada axmaarada iyo canfarta. qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsanayaan warkeena ku eegi doonaa. waxaa istuuriyahay gula sugan Maxamed Wacani oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya. waxaana soo dhow aad baad mahadsantahay sintaag balaanu dambeeyno dambeeyo dagaalkan culus ee Oromada iyo deegaanka Soomaalida ka dhax qarxay xagee ku dambeeyeen nimankii sanad iyo barka la dagaalamayay Tigreeg. haddaynu ku horeyno deegaanka Tigreega oo maalmihii ugu dambeysayba ay halkaasi ku socdeen mucaawino ka socotay dowladda federaalka Itoobiya ayaa haatan sidii hore laga calacaliyay ahayd in dadku ay gaajiyo macaluul u dhamaanayaan sidii hore dhaamo. sidoo kale haatan waxaa la sheegayaa in iyadana xabad joojintii u dhaxaysay dowladda federaalka Itoobiya iyo ururka TPLF ay gabi ahaanba ay burburtay. kadibna waxaa la sheegayaa in ciidamada xooga TPLF lagu arkayay agaarka deegaamada axmaarada iyo sidoo kale kan canfarta. halkaasina waxaa ka dhacay toddobaadadii ugu dambeysay isku hormaadyo aynan mahadinin labada dhinacba, kuwaasi oo labada dhinacba aynan waxba isku tureynin. waxaana halkaa ka socday dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ee ku axmaarada iskarabsanayo iyo sidoo kale ciidamada xooga TPLF oo intii xabad joojintu ay socotay halkaasi ka wada iyagana Ruusi iyo sidoo kale sidii ay uga qabsan lahaayeen ama dib ugula wareegi lahaayeen deegaamadii dagaaladu ay ka socdeen muddada 16 bilood. bal dhageystayaasheena aan dib u xusuusinay xagee ku dambeeyeen wada hadaladii u dhaxeeyay Tigreega iyo dowladda federaalka Itoobiya. dowladda federaalka Itoobiya waxay shaacisay in gabi ahaanba wada hadaladii iyo sidoo kale xabad joojintii u dhaxaysay labada dhinac gabi ahaanba ay joogsatay kadib markii xooga TPLF madaxdooda ugu sareyso Getachew Reda iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Debretsion Gebremichael looga yeeray maxkamadda dambiyada dagaalka dalka Itoobiya. haatan xooga TPLF waxay qaadeen caro iyo cadaawad weyn oo ay rabaan inay gabi ahaanba dhulka mariyaan ama cagta mariyaan ciidamada xooga canfarta iyo ciidamada liyuga axmaarada ee ku sugan xuduudda deegaamadaasi u dhow deegaanka Tigreeg. haatan dagaalku waa uu mar walba waxaa laga cabsi qabaa in dagaal weyn uu halkaasi ka qarxo. waxaana arkaynaa isbuuc dhaweyto ama 3 bari kahor in madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha dhexe dalka Itoobiya uu gabi ahaanba tuutaha u xidhay una haatan u diyaar garoobay sidii oo la dagaalami lahaa ururadan dalkiisa nabadda u diiday. waa hagaag xogagan Fano ee ka dagaalama ama u dhaqaaqa deegaanka axmaarada waxaa la sheegay maalmihii ugu dambeysay inay hanjabaadaha hawada u marinayeen ururka xoreynta ama jabhadda xoreynta Oromiya. maxaa iyagu u dhaxeeya labadan urur waa kii xooga TPLF markii ay soo dhawaadeen ay soo galeen deegaanka axmaarada iyo sidoo kale kan Oromiya xuduudooda marka ay imaadeen wakii lagu xamanay xooga TPLF inay heshiis hoose leeyihiin ururka OLA. arrintaasi markii la ogaaday oo ay dhacday xooga TPLF iyo xooga OLA ay qabsadeen deegaamo aad u tiro badan xataa caasimadda dalka Itoobiya ay gashay khalkhal. isla markaana xooga Fano wakii ay ka garab dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalka cadaawadooda halkaasi ayay ka bilaabatay. marar badan ayayna dhacday in dad Oromo ah oo xuduudda deegaamada Oromiya iyo kan axmaarada deganaa halkaasi lagu xasuuqay oo dad badan ay laayeen ciidamada Fano. cadaawadoodu cadaawad soo jireen ayay ahayd oo labada qowmiyadood u dhaxaysay, laakiin tan hadda socoto waxay ka bilaabatay dagaalkii xooga TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya u dhaxeeyay. waa hagaag hadda wax dagaal ah oo dhacay ma jira oo Fano iyo u dhaxeeya
ururka oola ama jabhadda xoreynta Oromia. markii laga reebo iskahorimaadyo yaryara oo dhacay ma jirto dagaal weyn oo u dhexeeya laakiin waxaa jirto hanjabaado hawada la isku marinayo tiro badan iyo mar kasta oo laga cabsi qabo in uu dagaalka iyo hanjabaadaha ay isku marinayaan hawada labadan urur in uu sababo in labadan qowmiyadood uu dagaal ka dhex qaro. waa hagaag maanta waxaa la sheegayaa war intaaba ka culus wacanow ciidamada sida gaarka u tababaran ee liyo booliska dowlad deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeysayba ila xogaal ayaa sheegayeen in lagu daadgureynayay deegaanada Oromia si ay garab u siiyaan baa la yiri ciidamada liyo booliska Oromada iyo militariga dalka Itoobiya ee ku sugan gudaha Oromia ee u taagwaay weerarada iyo dagaalka joogtada ah ee ama jabhadda xoreynta Oromia ay soo qaadayaan ay ku soo qaadayaan. bal maanta maxaa u dambeeyay dagaalkan culusta xagee ka dhacay xaalku waa sidee saan ogeynba ama wada sugaynaba ciidamadii lagu daabulayay ee la rabay in lagula dagaalamo ciidamada xooga OLA ayaa la sheegaya ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida iyo kuwa OLA inuu dagaal ku dhexmaraya nawaaxiga magaalada Huweed oo ku taala xuduudda Oromia iyo sidoo kale tan Soomaalida. ciidamada deegaanka Soomaalida ayaa koonfurta Oromia la geeyay maalmo ka hor si ay ula dagaalamaan jabhadda xoreynta Oromia. haatan dagaaladu waxa uu ka socdaa duleedka magaalada Huweed waxaana la sheegayaa in halkaasi isku hormaadyo xoogan ay ka dhaceen xalay ilaa iyo shalayto ilaa saaka ugu dambeysayna ay dagaaladu wali ay socdaan. ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maalmihii ugu dambeysayba waxaa Mustafa Cagjar uu ku daadgureynayay gudaha deegaamada Oromada madaxweynaha ama aan dhahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu tutaaxidhay uu amar ku bixiyay dowlad deegaanada uu u malaynayay inuu ka helayo ama sumcadda uu ku leeyahay ama taageerada badan uu ku leeyahay in ay geeyaan ciidamadooda furimaha dagaalka ee lagula dagaalamayo xooga Oromada. waxaan ogeyn Oromada iyo sidoo kale Soomaalida inay yihiin laba dad ama laba qowmiyadood oo aad iskugu dhow laakiin ay jirtay cadaawad xilligii Cabdi Maxamed Cumar dagaalo badan ay ku dhex galeen ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida iyo kuwa Oromada. haatan waxay dadku sheegayaan haddii ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida la geeyay halkaasi waxaynan ka amaan helaynin ciidamada liyuga ee deegaanka Oromia iska baxkan oo weelay waxana waa hagaag shacabka Oromada tan iyo intii ay isbedelku Itoobiya u imaaday shacabka Oromada iyo dowlad deegaanka Soomaalida shacabkoodu waxay ahaayeen saaxiib dhow oo wax colaada kama taagnayn markii laga reebo xusuustii hore ee Cabdi Ile xilligiisii ee shacabku ay labada dhinacba is xasuuqeen marka haddii marka ciidamada liyo booliska la geeyay gudaha dagaalada ay ka socdaan jabhadda xoreynta Oromia aan ognahay in ay taageero buuxda ka haysato shacabka deegaanka Oromia sidee noqonayaan mustaqbalka Soomaalida kale ee dhex degan Oromada ee aan hubna wadanin ee labada dhinac midna ay waan taageersanayna dhex joogto Oromada ku dhex nool. horta Soomaalida meel kasta joogtaba waxay inta badan u sacabatumaysaa oo taageersan tahay ciidamada liyuga ee gaar sida gaarka u tababaran. taasi waxaaba ka daran ciidamada aan usoo laabanay su-aasha aad weydiisay deegaamada dowladdeegaanka Soomaalida uu ka tirsan yahay yacni gobollada uu ka kala tirsan yahay dhammaantood ama intooda badanba waxay ka hor imaadeen ama ay dhaliileen fikirka ka dambeeyay in ciidamada liyuga la geeyo deegaanka Oromia oo waxba haatan dagaal uu nagala dhaxayn. ururka OLA aad ayuu u baaxad weyn yahay uuna ka badan yahay la dhihi karaaba xataa ciidamada dowladda federaalka Itoobiya sababtoo ah maalin walba inta tababar loo soo xidha ayaad ka arkartaa tiradooda intay gaadhayso. marka barito cadaawad ay qaadayaan oo u qaadayaan dowladda deegaanka Soomaalida ciidamadaasi ururka marka shacabka inay ka jaraan oo ciidamadan intay soo galaan habeenimo ama meel ay ka soo galaan dowladda deegaanka Soomaalida in ay shacabka xasuuqaan cid ka hor istaagi karto ma jirto. haatan aan usoo laabtay su-aashaada weydiisay haddii dowladda deegaanka ciidamadan la geeyo gudaha hadda la geeyaba waxaysan ka amaan helaynin shacabka iyo sidoo kaleeto ciidamada liyuga ay isla yihiin ee dowladda deegaanka Oromia kuwaasi ayaan ka nabadgelin iskaba dhaaf waxa weeye liyo booliska Oromada waxay taageersan yihiin jabhadda xoreynta Oromia toos u taageersan sababta maxay dagaalo waaweyn oo la geli waayeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya meelaha ay degan yihiin iyo fariisimahooda bas ayay ku qaadan dagaal kuma qaadan ciidamada liyuga ee Oromia meelaha ay degan yihiin way ka leexdaan. marka taa ayaa ku tusayso in ay tahay gowsa abeeso ilkaha hoosta ka xirisan
aad iyo aad baad umahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa maxamed wacane oo inala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya. daawadeel idinkana waan idinka mahadcelinaynaa la joogitaankiina warkan warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.